wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga dhammaan madaxda kala gedisan dalka gudoomiyaha Cabdiraxmaan injineer Cabdiraxmaan Yariiso iyo gobolka iyo madaxdiisa kale ee la shaqeysa dhammaan marti sharafta hooyooyinka fanaaniintii saxaafadda dhammaan dadka quruxda badan ee caawa halkan sida farxadda leh kalgacalka quruxda badan iyo jacaylka ii muujiyay iigu soo dhaweeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baadna ugu mahadsantihiin runtii laba waxba waa ka mahadnaqayaa ilaahay baa mahad leh laakiin laba waxba waa ka mahadnaqayaa wasiiradda dhalinyarada iyo isboortiga Khadiija Diiriye casuumadda ay ii fidisay ee aan ka aqbalay ee aan ku imi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay dhacday go'aankana aan qaatay inaan dalkaygii caasimaddaydii ka maqnaa dhowr iyo 30 sannadood ayaan darradaas taariikhigaaba iska ahayd laakiin mar walba hiyiga iyo laabta waan ku hayay waan soo socday runtii marmarna qofku haddii uu dabaal qabow isdul taago marmar wuxuu rabaa in lagu yariixo marka maalintii si degdega markay wasiiraddu ila soo hadashay oo tir waxaanu jecelahay hawlo caynkaas baa jira fadlan inaad noo timaadid oo niri oo imisa cashaa ka hadhay 3-4 casho waxaan isiro taa diyaar uma tihid wax badan baan isweydiiyey laakiin runtii soo riixniinka yar un baaban u baahnaa marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aan arkaa in wax badan inooga qabsoomeen imaatinkaas taasi waa mid xafladan quruxda badan iyo casuumadan ballaadhan iyo soo dhaweyntan oo gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yariiso oo caawino ii sameeyay runtii waa mid aad iyo aad ii taabatay u weyn aan aad iyo aad u qiimeynayaan ugu faraxsanahay waxa runtii farxad aad iyo aad u weyn ku sii daraysa goobtan aynu maanta taaganahay oo taariikhda Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhida fiisha guberno waa halkii Soomaaliya asaaskeedii bay ahayd xarunteedii bay ahayd halkii calanka maandeeq bay ahayd waa meel qiimaha leh tan kale ee aanu aad iyo aad hayb ugu wadeegnaa gobolka Banaadir ma aha oo kaliya inaan ku noolaan jiray oon ku soo koray laakiin laba waxba halkan way leedahay oo waa mar xaafadan Shingaani waan ku noolaa oo wax badan magaalada intaan deganaa halkaasaan ka deganaa marka meeshan waxay ahayd xaafadaydii bay ahayd tan labaadna markaan u saftay ciyaarihii gobolada gobolka Banaadir maalintii aanu Jowhar aadaynay is araggii hore ee ciyaaraha ee aanu gobolka Banaadir u safanaynay meeshiina laga anbixiyay bay ahayd goobtan markaas waxay ahayd 80kii waa 38 sano ka hor